Dib u dhac ayaa ku yimid shirkii maanta lagu waday inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug oo hore ay u ballameen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Hirshabelle Koonfur Galbeed ayaa maanta tegi doona magaalada Dhuusamareeb. Waxaa sidoo kale lagu wadaa in ay gaaraan guddiga kabaaraandegida arrimaha doorashooyinka ee maalmihii lasoo dhaafay ku shirsanaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa sheegay in shirka uusan baaqan ee uu furmi doono maalmaha soo socda, isla markaana maanta magaalada ay kusoo wajahan yihiin wufuud kala duwan. Ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socdeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka. Maanta ayaa lagu waday in Dhuusamareeb uu shirkaas ka furmo, laakiin madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo aan weli gaarin ayay tahay sababta ugu weyn ee maanta uu shirkaas u furmi waayay. Laakiin maalmaha soo socda ayaa la filayaa in shirkaas uu si toos ah uga furmo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda u ah maamulka Galmudug.